Waan idin salaamayaa meel kastoo joogtaanba walaalahayga Soomaaliyeed qaasatan ummadda Soomaaliga ku hadasho walaalahayga kalaba walaalayaal waxaan rabaa inaan la qaybsado arrin ku saabsan cafidda waa muhiim cafitaanka in la iscafiyo sababta ay muhiim u tahay waxaa weeye ilaahaygeena abuurtay baa نعفيني هدان إسعفينه إسعفينتنا أنا وحنقول نقانا بالعادة هدان هاي أنا قدام بقى قالنا قف كان دم بقى قالنا أنا مراني عفي لكن قف قدام بقى أنا قال حتى عوانا عفينا إنه عفي أسرع لا بد لنا عوانا نسعفيها قف قدام بقى قال إيه قف كان قالين بقى muhiimadda aan taas u leeyahay waxa weeye wadankeena oo dhan dhibaatana haysata dhibaatadan haysata waxa weeye dadka oo dhan ismay cafin dhaawacyaa la iska kala galay waxa la ii haystaa aniga cidayda qabiilkayga waxa ay dambiga ay galeen waxa la ii haystaa dambigii reerkayga galeen waxaan dambiga saaxiibaday dambiga walaalkay dambiga qofka kula shaqeeya may qofka dambiga uu gala kaliya ayuu mas'uul ka yahay sababta cafitaanku uu muhiim u yahayna waxa weeye ilaahaygeena abuurtay baa yiri cafiya si aan idin cafiyo anaga nolosheena dhanba iyo future-keena dhan ay ku xiran tahay cafitaanka way adag tahay marka runta la sheego in la cafiyo sababta adag tahayna waxa weeye waa spirit adag weeye oo qofka wuxuu u turjumayaa in laga gardaran yahay sababtoo qofka dhaawac uu haystaa oo ku kalifay waxaas inuu sameeyo oo hore uu asaga garanaynin oo ku dhex jira ka iska celi iska dhac iska waxay ka xoog badno ka fiicno hoos isku celinin waxyaalo badan baa kalifta laakiin sida ognahayba cafitaanku oo cafidda waa afka un baan saarnaa waxaan dhahnaa haddaan ku cafiyo mar dambe ha igu celin mar dambe ha igu samaynin haddaad igu samayso macnaha waxaan ku cafinaa condition qabiilkaaga anoo hadduu ila jiri doono ama gabar yahay ama mar dambe aad igu xumayn doonin mar dambe igu waxayn doonin cafitaanku waa ku cafinaa saas maaha cafiddu muhiimka waa muhiim inaad wada cafisid qofka hadduu ciddaadi mar labaad inta usoo noqdo dilaya xataa waa in la cafiyaa sababta kalifaysa marka inaadan cafin karin waxa weeye waa spiritkaasna ilaahay baa jebin kara aniga ma jebin karo ilaahay baan la weydiistaa in ilaahay dambigaagana lagu hor qartaa qofka dambigiisa muhiim kuma aha laakiin dambigaagaad qaranaysaa waxaad leedahay rabbiyow ani qofkaan waan cafin waaye saasaan igu kalifaysa waan xumahay markaad taada qaratid buu rabbigu ku caawinayaa spiritkana kaa jebinayaa marka waxaa yaraanaya argashadii xanaaqii dhaawacii buu spiritku rabbiga kaa jebinaya waxaad noqonaysaa qof xor oo caadi ah oo qofkii waxba u qabin oo geelii 2 milyan oo laga dhacay xataa muhiim uma aragtay ama ka badan reerahaagii oo dhan la dilay waxba uma aragtay sababtoo waxaad og tahay qofkaas inay culayskiisa tahay adiga aan ahayn adigu qof dhibban habata dhibkii laga afuray qofkaasna waad u duceynaysaa mar dambana ma xasuusanaysid markii ilaahay kaa jabiyo waxaan ilaahay ku siinayaa markuu spiritkaas kaa jabiyo jacayl iyo awood aad qofkaas noloshiisa dambe aad ku xasuusnaatid aad caadi ula noqotid walaalayaal waxaan ka codsan lahaa inaa cafitaanka aan lagu xirin sabab qofka sabab inaan lagu xirin inaanan ma aragtay because sababtoo ilaahaygeena kitaabka quduuska wuxuu ku yiri xad waan cafinaya mana xasuusan doono ilaahay wuxuu ku leeyahay isku cafiya si aan idin cafiyo
muhiim inay tahay uu ka dhigay sababtoo ah wuu ogyahay qofka spirit baa ku jira u ogolaanaynin inuu caadi u cafiyo oo caadi ula noolaado way adag tahay qofka u fududahay ma jirto laakiin qofkana haddii la xukumo ama xanaaqi mid kaloo kasii badan loo geysto wixii daawo ma yeelanayaan farahi ka baxayaan laakiin qof walba oo walaala waxaan ku waanin lahaa dembigu asaga gala isagaa og isaga inuu ilaahay hortiis ka qarto suu ilaahay ugu fududeeyo walaalkiis ugu tago uu uga furfurmo waan ku waanin lahaa tan kale waxaa muhiimadda ay tahay waxaa waaye haddii aan is cafino ilaahay dembiyadeena oo dhan buu cafinayaa oo ilaahay inaan cafiyo inaan qof cafino marka yaa adag teeda kale jawgeena dhan baa xumaanaya waddankeeni baa qasmaya walaalnimadeeni baa qasmaysa xiriirkeeni baa qasmaya noloshii aan ku faraxsanayn oo dhan waxaa naga qaadaya xanaaqaas yar ama dhaawacaas yar qofka hadduu qof kow ka siiyo wuu asaga dembiga gala isaga u taala laakiin aniga dembiga ii taala waxa weeye inaan qofkaas cafiyo oo maxaa la yidhaahdaa si ilaahay aniga ii cafiyo aniga haddaan ahay qofkii wax dilayna anigana waxaa ii yaalo inaan ishambal gareeyo ilaahay ka baryo in si aan kusoo ceshan lahaa walaalkaygii aan dhaawacay ama aan dilay ama aan wax ku sameeyey marka muhiim weeye walaalayaal cafidda waxayse kasii daran qofku inuu wax cafinin waxay noloshiisa dhan waxay noqonaysaa qof aan meel u socdo iyo meel ka socdo jirin ma garanayno sababta aan cafinayn sababta markaan cafino qofka waxaan idhahnaa okay mar dambe haddaad waan ku cafiye hadda mar dambe laakiin ha igu sameyn mar labaad maku igu sameyn kitaabka quduuska waxaa ku qoran maalintii qofka walaalka ah 7 goor hadduu qalad kaa galo cafi anaga 7 goor midhaan waxay dhacdaa millions time millions 7 goor waxay dhacdaa mar aan qofka isaga dhan jarnay oo goynay waa muhiim in dadkuna inay cafitaanka waa lagu cafinayaa si kasta wax u yeelna inuu dhaha ma ahan laakiin kitaabka ilaahigii aqliga naga badnaa aqligeena sameeyo aqligeena og wuxuu yiri maalinta qofka 7 goor hadduu kusoo noqdo cafi may waa fiican tahay qofku inuu intuu qalad kaa galo ku cafisid qalad kaa galo cafisid ilaahay waxa muhiimka ah u tahay isagaa noo sheegay waa isagaana garanaya marka runtii anigaas aan hadlayo cafintu waa igu adag tahay wayna adag tahay laakiin waxaan u sheegaya waxaa waaye bili-aadankeena oo dhan annagoo dhan include me waynagu wada adag tahay marka muhiimaddu waxay tahay si aan hore ugu soconno ogaada walaalayaalo cafintu inay muhiim tahay in qofka markaa cafisid inta xagga istaagtid aad waa cafiye tiraahdo oo weli sheekadii ku jirtidna I don't think so inay cafid tahay marka ogow iska tijaabi walaalaha iyo qofkaa doontid ii duceede in ilaahay kula hagaajiyo inaa cafisid xumaanta iyo sharta iyo qalbiga ku jirta ayaa keenaysan inaan iscafin qofka kalena waxaa u fududeynaysa inuu cafiyo waxaa xumaan qalbigiis kuma jirto inaa bili-aadanka hortooda weji wanaagsan laga samaysto muhiim ma aha waxaa muhiim ah ilaahay hortiis in weji wanaagsan laiskula dhaqmo lais xishmeeyo qofkii wax kaa galay aan laga aarsanin qofkii in laisku taraagareeyo in la cafiyo adoo ka aarsata haddana mar labaad intaad noqotid baa dhihi kartaa cafi bili-aadan baan nahay haba ahaataba waxaan idin oran lahaa waxa la yiraahdaa annaga iska daaya qof ha iskula xisaabtamo aniga yaan laga qabsan wixii qabiilkayga sameeyey wixii walaalkay sameeyey wixii
ehelkayga sameeya laakiin aniga waxa aan sameeyay halaygula xisaabtamo qof walba oo walaalo oo Soomaali saas oo sameeyo caafimaad baa la helayaa daawo baa la helayaa meel arinta la saaro baa la helayaa walaalayaalo hal is cafiyo oo ilaahay hal la weydiisto inuu awood noo siiyo inaan is cafino aniga anoo isdhahay waxbaa cafisay oo waa hore aan islahaa waxbaa cafisay waa rabbigayga ii sheegay inaan waxba cafin oo weli culayska qalbiga ku wato marka aan iska tijaabiyo inaad adiga isla saxsan tahay ilaahayna wuxuu yiri adiga sida aad isku sameyn lahayd dadkan oo sameey hadda adiga is jeceshahay hadda adiga naftaada meel fiican la rabtaa qofka walaalka ah kalena saas loo sameeyo walaalayaal waxyaalaha qaarkood laba qof markay col yihiin kuwa buubuuninaya oo dhibaatada ku wadana oo colki sii weynaynayo oo dhaha reer qabiilka reer hebel anaga saas ka fiican iyo waxaas iska daay Soomaali hadaa tihiin xumaanta iyo xididka ma aragtay qabiilka iska tuura xididka ma aragtay aarsashada iska tuura xididka ma aragtay isla weynaanta iska tuura xididka ma aragtay beenta iska tuura qof weyn oo ilaahay baan aqaanaa ku dhahayo haddana been sheegayo oo dadku isku gubayo oo dhibaateynayo xawaaye qofka ilaah iyo qofka sharta leh iskuma dhawaa waa la kala garan karaa laakiin waxa muhiim ah qofka xataa oo sharka leh inaanan la nicin sababtoo ilaahay uu ka dardaarmay cadawiyadiina jeclaada kuwa ma aragtay shartiina ku ah jeclaada xataa kuwa aan idinku raacsanayn wax jeclaada marka qof iyo bini'aadanka oo Soomaaliga ama qofka bini'aadanka oo Soomaaliga ku hadlo waxa muhiim ah in aad iyaga la isku mashquulo oo shalay wixii tagay inta la iska daayo ilaahay la weydiiso cafis anagoo dhan in ilaahay u tagno oo ilaahay cafis weydiisano soo ilaahay noo cafiyo oo noogu fududeeyaan walaalkeen inaan cafino mafahanteen saasay hore u socon kartaa inta la isdhaawici lahaa waxaan hubaa 100% Soomaalida oo dhan inay is jecel yihiin oo calaadoodana ay meel shishe jirin laakiin aniga la ii cafiyo waa in aniga aan dambiyadayda qartaa haddaan dambiyadayda ilaahay hortiisana ku qartaa oo dadka bini'aadanka qofkan dambiga ka galay ceeb ma aha wuu ku og yahayba soo inaad qiratida ku muhiim ku fiican si ilaahay ku xoreeyo oo kaaga xorootid ka duceysta spiritkan oo la yiraahdo cafid la'aanta hala tuuro oo laga adkaado taada kalena waxaa waaye arrintan cafidda muhiimka ay tahay dhadhamiya oo ogaada oo raadiya waxa ay muhiimka u tahay anaa ka caqli badan anaa ka fiican mahebelaa wax ii wadi kara waa waxaas waxa ku dhimay qof walba waxbaa ku jira laga faa'iideysto halis garab qabsado halis jeclaado walaalayaal intaan nool nahay baan waxa isku nahay markaan dunida ka tagno waxba muhiim ah waxaan idin weydiisanayaa kulligiin wixii yaqaanay waxaan aqooninba inay cafiyaan oo maxaa la dhahaa wax qalad haddaan ku hadlay ama wax xun aan idin eri cafiya anna waan cafinayaa ilaahay baan ka baryayaa inaan idin cafiyo anigana idinkana ilaahay ka barya inaa cafisaan ama awood haddaa leedihiin oo ilaahay reedi idin siiyey way cafin kartaan colaadda naga tuura jaceylka iyo nabadda ayaa ka fiican iyo raxmadda iyo wanaagga waan spirit aan u baahannahay in aan haysano ilaahayow rabbiyo adaan waxaan ku hor imaanaynaa adaan waxaan ku weydiisanaynaa rabbiyo awood aad nagu siisay cafid waddankeena dhan rabbiyo iyo dambiyada walaalahay oo dhan ay galeen oo dhan rabbiyo cafi anigana dambigayga cafi rabbiyo kuwa is cafiya naga dhig rabbiyo kuwa waddankooda iyo dalkooda nabadkooda jooga naga dhig rabbiyo kuwa aanan qalbiyadooda ayagoo ogeyn iska jaaji garaynin naga dhigin rabbiyo kuwa
naga dhig kuwa aan isjaaji karayn rabbiyo kuwa isla noolaada nabad ku wada noolaada naga dhig rabbiyo abuu macaano adaan ku jecelnahay noo imo in Jesus name I pray amen